Djibouti oo xadka ay la wadaagto Somaliland u diraysa boqolaal ka mid ah diyaaradaha waxbasaase ee la yiraahdo droonka kuwaas oo habeenkii xalay ahayd la geeyay meel ka mid ah dalka Djibouti. Haddaba dagaalka u dhaxeeya Djibouti iyo Somaliland oo qarka u saaray inuu xadka ku fido iyo warar amuurta ku saabsan ayaan ku soo gudbin doonaa. Sidoo kale qodobada kale aan ku soo gudbin doono waxa qayb ka noqon doona maxaabiista laga qabtay ciidanka Samaroon oo loo dhaadhiciyay jeelal waaweyn oo ku yaala dawlad deegaanka Soomaalida iyadoo beesha Samaroon ay ka quusatay inay maxaabiistaasi soo furtaan. Warbixin ayaan kaaga hayaa oo amuurta ku saabsan. Sidoo kale qodobada kale ee xasaasiga ah oo aan kula wadaagi doono waxa qayb ka noqon doona faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo si weyn looga dareemayo gobolka Sool ilaa gobolka Sanaag. Qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordha ayaan saaxiibayaalidiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada. haddii taa markii kugu horeysay ku soo waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaadana qaybta commentigeena ugu reeb. qodobkeena ugu horeeya ayaan daawadayaal ku bilaabayaa Djibouti ayaa boqolaal ka mid ah diyaaradaha droonka la yiraahdo ee waxbasaase waxay geysay xuduudda ay la wadaagto Somaliland tan oo loo arko fariin cad oo loo dirayo Somaliland oo ku aadan haddii mar dambe ay dilaan hal asgari oo ka tirsan beesha Ciise in Djibouti ay toos u weerarayso saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidanka Somaliland. 3 gaari oo ah kuwa la yiraahdo candameylaha iyo hal gaari oo container wada ayaa la sheegay inay ka soo tallaabeen xadka Djibouti kadibna ay soo galeen dhinaca Somaliland. hubka wararka qaar waxay leeyihiin saldhig weyn oo ay Djibouti iyo Faransiisku maamulaan ayaa daroonkaasi la geeyay halka wararka qaar ay leeyihiin Djibouti arrinkan waxay uga gal leedahay sidii u adkeyn lahayd nabadgelyada isla markaana ay ula dagaalami lahayd kooxda argagixisada ah ee la yiraahdo Caanfarta ee diidan nolosha dadka Djiboutiyaanka ah. saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Djibouti qaarkood oo aan goordhow telefoonka kula hadlay si aan wax uga weydiiyo dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda waxay ii sheegeen in aysan iyagu dooneen inay xilligan weeraraan Somaliland balse taa beddelkeeda ay ka shaqeynayaan sidii ay nabadgelyadooda oo shacabku ay ku jiraan u ilaalin lahaayeen. mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Ciise oo aan qariyay magaciisa iyo sidoo kale nasabkiisaba wuxuu ii sheegay in Djibouti ay 100% hadda si weyn uga carootay weerar ay dhawaan fuliyeen ciidanka Somaliland oo lagu dilay dad rayid ah kaasi oo ka dhacay koonfurta tuulada Heemaal. weerarkaasi Somaliland waxay sheegtay inay ugu aarguday dad rayid ah oo xoolo dhaqato iyo gaadiley iskugu jira oo ciidanka beesha Ciise ay dileen walow markii dambe baaris aan sameeyay aan ku ogaaday in haba yaraatee Ciisuhu aysan beegsan dad rayid ah oo baramageeda oo aan hubaysnayn. Somaliland si cad ayay ula safatay beelweynta taagta daran ee la yiraahdo Samaroon waxaana wararka iyo macluumaadka la helay ay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyada hadda Djiboutiyaanku ay ka wadaan xuduudda ay ku soo beegantay markii la xaqiijiyay in ciidamo ka tirsan Somaliland oo dharka bedeshay ay dagaalka toos u soo galeen taas oo la sheegay inay tahay wax cawaaqib xoogan ay ka dhalan karaan. xubno sarsare oo ka tirsan dawladda Djibouti waxay sheegeen in dastuurka Djibouti uu qorayo in la adkeeyo xuduudda nabadgelyada laga wada shaqeeyo muwaadiniinta Djiboutiyaanka aana haddii ay culays dareemaan ay xaq u leeyihiin in dawladooda ay difaacdo. dabcan dastuurka Djibouti waxa ku jira in ragga ay wada dagaalamayaan Ciisaha iyo Samaroonku gaar ahaan Ciisuhu ay yihiin dad muwaadiniin ah oo xaq iyo xuquuq u leh in ay dalkooda difaacdaan haddii duulaan lagu soo qaado waa in Djibouti markaasi ay difaacdo oo waliba si hagaar la'aaneed ay u difaacdo ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha ciidanka Djibouti oo aan goordhow telefoonka kula hadlay. dad badan oo arrimahan la socda waxay leeyihiin Djibouti xadkii ayay ka gudubtay oo waxay rabtaa inay toos u beegsato saldhigyada ciidanka Somaliland taas oo dabcan haddii ay dhacdo noqonaysa iska horimaad fool ah oo dhex maray ciidamada Djibouti iyo sidoo kale kuwa Somaliland. xog ururin aan sameeyay toddobaadadii la soo dhaafay sidoo kale waxaan ku ogaaday in ciidamada sida gaarka u tababaran ee dawladda Djibouti ay ku sugan yihiin meelo ka mid ah xadka kuwaas oo la sheegay inay ka qayb qaadanayaan sugidda nabadgelyada xuduudda ay wadaagaan Djibouti iyo Somaliland. taliyaha militariga Jamhuuriyadda Somaliland Nimcaan Gaxnuug oo toddobaadkii la soo dhaafay aaladda fogaan aragga kula hadlay saraakiisha ciidamada Somaliland ee xuduudda ku sugan wuxuu sheegay inay amar u qabaan inay isdifaacaan haddii duulaan uu kaga yimaado Djibouti iyo beesha Ciise. saraakiishu waxay sheegeen in Nimcaan Gaxnuug uu sheegay in gurmad dhinac walba loo fidin doono haddii ay culays dareemaan laakiin marka hore wuu yiri iyagu ay isdifaacaan oo iska celiyaan haddii duulaan lagu soo qaado.
khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin dowladda Djibouti waxay qaadaysaa tallaabooyin u eg mid aargudasho iyo in daandaansi ay ku bilaabaan. hadda waxaa la leeyahay diyaaradahan daroonka ah oo 120 gaaraya ilaa 130 la gaaraya waxaa la geeyaa xuduudda. waa diyaarada wax basaasi kara, waa diyaarada sawir qaadi kara, waa diyaarada muuqaal duubi kara, waana diyaarada duruuraha dhex gala isla markaana sawir qurux badan ka qaadi kara saldhigyada ay joogaan ciidanka Somaliland iyo kuwa beesha Ciise sida ay xogo u tilmaamayaan. dadka arrimaha la socda waxay leeyihiin beesha Ciise markan waxay qaadaysaa tallaabooyin dheeraad ah oo tan ay fursad u tahay. dabcan sawiradaasi haddii ciidamada Djibouti ay qaadaan dadka ugu horeeya oo ay la wadaagayaan xogtan ay u gudbinayaan xogtan bilow ilaa dhammaad ay u faahfaahinayaan waa beesha Ciise. sababtoo ah Djibouti iyadoo markan uma fiicna inay dagaal fool ka fool ah la gasho Somaliland. sababtoo ah waxay Djibouti la dagaalamaysaa koox arxan laawayaal ah argagixiso ah oo la magac baxay Anfar kuwaas oo sheegay inay xoriyadooda u dagaalamayaan balse dhawaan xuduudda Djibouti iyo dhanka Ethiopia ku dilay 12 askari oo ka tirsan qaranka Jamhuuriyadda Djibouti. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wixii intaa ka dambeeyay amar ku bixiyay in tallaabo cad oo mid sharci waafaqsan laga qaado hogaamiyaha kooxda argagixisada ah ee Anfarta ninkaas oo la sheegay inuu duurka ku dhuumanayo sanadooyin fara badan. marka warar qaar waxay leeyihiin diyaaradahan maahan kuwa dabcan loogu talagalay in lagu beegsado ciidanka Somaliland ee waa kuwa loogu talagalay in lagu beegsado kooxda argagixisada ah ee Anfarta kuwaas oo la sheegay inay diidan yihiin nolosha iyo mustaqbalka dadka deegaanka Jamhuuriyadda Djibouti. xuduudda maadaama dhinaca Anfarta dagaal ay kaga socdaan Djibouti dhinaca Somaliland dagaal ay kaga socdaan Jamhuuriyadda Djibouti xaq waxay u leedahay inay sugto nabadgelyadeeda, in ay sugto xuduudeeda, in ay iska celiso cid walba oo loo arko inay dulmi iyo daandaansi ku tahay jamhuuriyadda. taasi oo ay dad badan aaminsan yihiin inay tahay waxa kaliya ee hadda u furan Jamhuuriyadda Djibouti ee ah inay iska celiso kooxaha argagixisada ah ee raba inay baabi'iyaan nolosha iyo mustaqbalka dadka deegaanka. si walbaba ha ahaatee khubaro badan oo arrimaha la socota ayaa waxay leeyihiin Jamhuuriyadda Djibouti markan waxay qaadaysaa tallaabooyin inaba aan caadi ahayn oo la doonayo in lagu minjaxaabiyo cid walba oo loo arko inay caqabad ku tahay noloshooda. qodobadeena kale ayaynu markan eegaynaaye maxaabiistii laga qabtay Samaroon ayaa la soo wirinayaa in gordhow loo dhaadhiciyay dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida. saraakiil sarsaro oo ka tirsan ciidanka Somaliland ayaa gordhow ii xaqiijiyay inay heleen xog rasmi ah oo ku saabsan in maxaabiistii laga qabtay beesha Samaroon oo beesha Ciise ay qabteen la geeyay magaalada Diridhabe ilaa magaalada Jigjigana la geyn doono. xogtan oo ah mid rasmi ah waxaan ka xaqiijiyay dhowr xubnood oo Somaliland ah iyo sidaas si lamida dhowr xubnood oo beesha Ciise ah kuwaas oo ii sheegay in ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim uu amar ku bixiyay in maxaabiistan xuduudda laga talaabiyo oo aan la sii deyn ilaa inta Somaliland iyo Samaroonku ay ka baxayaan dhulka beesha Ciise. waa sida laga soo xigtay ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim. dabcan ugaas Mustafa oo wajigiisa laga dheehan karay sida uu uga xun yahay ficiladan ayaa wuxuu tilmaamay in aysan marna dooneen aqbalayn isla markaana ay ka soo horjeedaan ficil walba oo loo arko inuu yahay daandaansi. dadkayaga u dul qaadan maayaan, aniguna ka yeeli maayo in dhulkayaga lagu soo xadgudbo kadibna la yiraahdo dadkii deegaanka ayaa lagu xadgudbay. saas oo ay tahay anagu wax badan ayaanu xiriirnaa oo ay ka mid yihiin wada dhalashada iyo walaaltinimada, laakiin kuwa badan oo intaasi diidan ayaa jira kuwaas oo caqabad u arka noloshayada ayuu yiri ugaas Mustafa oo warbaahinta si kooban oo la hadlay. tirada guud ragga maxaabiista ah ee laga hayo beesha la yiraahdo Samaroonka ama Gudubirsaha waxay gaarayaan 19 nin. 19 ninba dhaawacyo ay qabaan. sababtoo ah waxaa la qabtay iyagoo dagaalamaya, iyagoo xabad ridaya, iyagoo oo baacsanaya ciidanka beesha Ciise ayaa dhabarjibin lagu sameeyay kadibna nolosha lagu qabtay. Ciise marka waxa aad loogu amaanaya ayaa waxay tahay raggii ay xabadda ku qabteen iyagoo ridaya inaan mar dambe la xabadayn, xabadna lala dhicin, la ciqaabin, si qurux badan loola dhaqmay, si wanaagsan loola dhaqmay, kadibna la sheegay in la geynayo
meel amni ah oo markaasi dowlad deegaanka ku taala. Sidaas la mid ah toddobaadadii la soo dhaafay xogaha wararka iyo macluumaadyada aan helayna ayaa waxay tilmaamayaan in dhowr iyo 20kii saac ee la soo dhaafay ay jirtay aragti la xiriirta in si degdeg ah loo qabto isla markaana gacan bir ah loogu qabto cid walba oo la isleeyahay waa ay fakinaysaa maxaabiistaasi. raggan 19 ah ee hadda aan idiin sheegayo wararka iyo macluumaadka aan helayna waxay tilmaamayaan in iyagoo dagaalamaya xabadda ridaya la qabtay kadibna la daryeelay qaarkood cisbitaallo la geeyey qaarkood daaweyn loo sameeyey qaar la sheegay in ay dhaawacyo culus qabaan oo la geeyey diridhaba cisbitaallada ugu fiican yacni waxaa loo sameeyey daryeel iyo dabiib aad u wanaagsan sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadkaan helayno. saraakiil sarsare oo ka tirsan Somaliland waxay tilmaameen bilihii la soo dhaafay xataa in ay og yihiin in ciidamo Jabuutiyaan ah dagaalka ay ka qayb qaadanayaan. dad badan haddaba waxay aaminsan yihiin hadda inay toos iyo si dadban bay u dagaalamayaan Somaliland iyo Djibouti beesha Ciise iyo beesha Samaroon. yacni dagaalkii u dhaxeeyay Samaroonka iyo Ciise hadda waxaa ku soo biiray Djibouti iyo sidoo kale Somaliland oo ay dad badan aaminsan yihiin inay caqabad kun markaasi noqonayaan in heshiis buuxa laga gaaro. sababtoo ah Djibouti dad badan waxay aaminsan yihiin in ay caqabad ku tahay horumarka Somaliland halka Somaliland ay sidaas la mid ah dadku aaminsan yihiin inay caqabad ku tahay horumarka Djibouti. yacni waa isku tuurtuur iyo isku eedeyn ka dhaxaysa labada dhinac oo ay dad badan aaminsan yihiin inay hadda xaajadu gaartay meel aan waxba laga qaban karin. marka dadku waxay ku talinayaan si loo ilaaliyo wada dhalashada iyo walaaltinimada is-ixtiraamka iyo qadarinta dhinacyada ka dhaxaysa waa in marka ugu horeysa miyirku u soo laabto saamileyda siyaasadeed ee hurinaysa colaadda. dad badan baa waxay aaminsan yihiin inay rabaan inay saameyn ku yeeshaan maamulka la leeyahay Ciisaha loo dhisayaa ee Guban State ama maamulka la leeyahay Samaroonka loo dhisayaa ee la leeyahay Awdal State. Guban iyo Awdal waa inay heshiiyaan dabcan waxa ay dan ugu jirtaa dadka deegaanka. Somaliland se dan ma ugu jirto sababtoo ah Somaliland waxay leedahay awal ayaa laascaana laga dhisay maamul la yiraahdo Waqooyi Bari haddana in maamul laga garab dhiso dadkii deegaanka wax soconaya iyo wax aqliya iyo wax garaadku uu dadka siinayo toona maahan. taas ayaa waxa la leeyahay waxay keenaysaa in Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale xataa Cabdiraxmaan Cirro ay qadiyadaas ku kala fogaadaan oo labada nin qadiyadoodu ay gaarto meel aan waxba laga qaban karin iyo inay sheekadu tagto mindi ku taag taasoo dad badan ay aaminsan yihiin inaysan cinadan ugu jirin. sidaas la mid ah dadka taxliiqiya arrimahan ama la socda Ciisaha iyo Samaroonkana taariikhdooduna si fiican u yaqaan waxay leeyihiin Ciisaha iyo Samaroonka hadii la isku daayo kala adkaan maayaan. haddii colaadu ay sii socoto dad badan waxay aaminsan yihiin in ay sheekadu noqon doonto mid aad u daba dheeraata isla markaana la arki kara ayaa la leeyahay isku dhacyo ka waaweyn inta hadda la filan karo. qodobkeena ugu dambeeyana wararka xilligan laga helayo magaalada Og ayaa waxay tilmaamayaan in ciidanka Somaliland ay bilaabeen wax u eg daandaansi ka dhan ah ciidanka maamulka Waqooyi Bari. dhowr iyo 20kii saac ee la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhanka ciidamada ah ayaa si weyn looga dareemayaa deegaano hoos yimaada taliska ugu weyn ciidanka Somaliland ee Og halka magaalada Guumeys oo saldhig u ah ciidanka Waqooyi Bari isna laga dareemaya dhaqdhaqaaq ciidan. dadka arrimaha la socda waxay leeyihiin Somaliland iyo Waqooyi Bari qarka ayay u saaran yihiin inay isdagaalaan sababtoo ah dhaqdhaqaaqyada labada ciidan ay kala wadaan iyo talisyadooda ugu weynay wuxuu noqday mid saramaray. tusaale habeennimadii xalay ahayd waxaa la sheegay sargaal sare oo ka tirsan militariga Somaliland iyo gaadiid uu wato inuu si kasta ugu sigtay inuu u gacan galo ciidanka Waqooyi Bari kadibna uu ka soo badbaaday. taas waxaa la sheegay in loo arkay daandaansi iyo shirqool laakiin ciidanka Waqooyi Bari waxaa la soo warinayaa inay taa bedelkeeda sameeyeen arrin xasaasi ah oo ah in ciidanka Waqooyi Bari haddii ay isku dayaan inay soo dhaqaaqaan xabadda lagu bilaabo. Sanaagna waxaa la leeyahay wararkan hadda ka helayo dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa halkaas laga dareemayaa. colaadu waxay saaran tahay afka sankiisa mar walbana waxaa laga cabsi qabaa in dhinacyadu ay gooda istaraan isla markaana ay xabaddu noqoto mid afka caaradii ka baxda. waxaan la hadlay dhowr xubnood oo saraakiil ah oo ka tirsan maamulka Somaliland waxayna ii sheegeen in iyagu aysan colaad hurinayn laakiin cidda colaada hurinaysa ay rabaan inay u caqli celiyaan
nabadda u sheegaan, xasiloonida nidaamka iyo kala dambeynta u sheegaan. haddii ay qaadan waayaanna ay xabad afka ka gelin doonaan. dabcan waa hanjabaad tii ugu sarreysay oo dhinacyada ka soo yeeraysa. Somaliland sidaas lamida hadda waxaa ku furan furinta beesha Ciise iyo Samaroon ayay taag u leedahay Somaliland inay hadda isku furto dagaal ka qarxa gobolka Sool ama gobolka Sanaag. dad badan waxay aaminsan yihiin inaysan xilligan macquul ahayn oo ay Somaliland og tahay waxa ka soo socda halkaasi. sidaas lamida Somaliland ay og tahay dhaqdhaqaaqyada halka ka socda oo aysan xilligan Somaliland ku ordi doonin una markaasi u tafaxiidan doonin inay dagaal la gasho beesha faca weyn ee dhulbahantaha laftirkoodu garaadadoodu way og yihiin haddii ay seexdaan ama haddii ay isdhigtaan in shaqo badan ay sugayso. maamulkan curdunka ah madaxdooda sida Cabdiqaadir Firdhiye iyo Abwaan Cabdirashiid Jibriil Cawd iyo waxaa la soo warinayaa inay og yihiin dulmiga iyo daandaansiga Somaliland ka soo socda, wayna og yihiin inay caqabad tegi doonto, xaaladuna ay faraha ka bixi doonto haddii aan si degdeg ah xal looga gaarin. dabcan qodobada la isku hayo oo ay dad badan aaminsan yihiin in Somaliland ay rabto inay burburiso dhismaha maamulkan curdunka ah ee saldhigiisu yahay magaalada Laascaanood, dhawaanna aqoonsiga ka helay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. sidaas lamida dad badan oo arrimaha la socda waxay leeyihiin Somaliland iyadoo hub ka helaysa Ethiopia oo dabcan si fiican rabtay inay ugu diyaar garowdo guluf dagaal oo ka dhan ah maamulka waqooyi bari ayaa waxaa la leeyahay waxaa ku furmay jid iyo jiho weyn oo ah dhinacaas iyo maamulka Ciisaha iyo Samaroonka dagaalkooda. haddii Somaliland dabcan dagaalka ay soo afjarto waxa ugu horeeya ee Somaliland xilligan ay dabcan xabadda ka ridi doonto ama ay doonayso inay xabadda ka rido waa gobolka Sool, gaar ahaanna aaga Laascaano iyo deegaanada hoos yimaada. waxaa jirta sidoo kale aragti ay soo jeediyeen dadka qaar oo la xiriirta in dhulbahantaha iyo warsangeligu horta khilaafkooda la dhameeyo. weli dabcan waxaa jira khilaaf u dhaxeeya dhulbahante iyo warsangeli kaasi oo ay dad badan aaminsan yihiin in uu gaaray meeshii ugu sarreysay. khilaafkaasi dabcan dhowr jeer ayaa la damcay in la xaliyo, dhowr jeer ayaa la damcay in wada hadal iyo wada xaajood lagu dhameeyo, laakiin waxaa jirta in Somaliland ay warsangeliga laftirkoodu galaangal ku leedahay oo ninka la yiraahdo ama suldaanka guud ee beesha warsangeli Suldaan Siciid, Suldaan Cabdisalaan, Garaad Cali Shire waxaa la leeyahay wuxuu mar la jiraa Somaliland marna wuxuu la jiraa Puntland. waa oday xariiftamaya dagaaltamaya, laakiin hadda waxaa la leeyahay arinta ugu weyn ee hadda taagan ayaa waxay tahay sidii xal loo gaari lahaa. in ay quman tahay oo ay dhowdahay, laakiin ay jiraan shakhsiyaad raba in ay carqaladeeyaan inaysan heshiinin dhulbahantaha iyo warsangeligu. inkastoo hadda waxay isku darsadeen oo magacii SCC laga guuray, Khaatuma laga guuray, dhulbahanta warsangeliga dartiis. haddana warsangeliga waxaa la leeyahay kuwii la joogay dhulbahante ayaa waxaa la leeyahay la celcelin laayahay. waxay ku andacoonayaan inaysan xaqii iyo xuquuqdii ay ku lahaayeen beesha warsangeli beesha dhulbahante aysan helin, oo ay hadda doonayaan in ay qaadaan tallaabooyin dheeraad ah oo lagu soo afjarayo khilaafaadka oo ay dad badan aaminsan yihiin in khilaafka hadda u dhaxeeya warsangeliga iyo sidoo kale dhulbahantu ay ka faa'iideysan karto Puntland oo Siciid Cabdullaahi Deni laftarkiisu la leeyahay khilaafaadkan ayuu arkaa Jaanis. waxaa sidaas lamida jirta aragti yar oo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah odayaashii ka qayb qaatay dhismaha maamulka waqooyi bari, kuwaasoo leh waa in si degdeg ah xal ay u gaaraan dhulbahantaha iyo warsangeligu si baa la leeyahay loo soo afjaro khilaafaadka halkaasi ka jira oo ay dad badan aaminsan yihiin inay gacmo saddexaad, gacmo afraad ilaa gacmo shanaad ay ku lug leeyihiin. si walbaba ha ahaatee isku soo wada duubo xaaladda hadda ka taagan gobolka Sool ilaa gobolka Sanaag waxay u eg tahay inay xabadu bilaaban doonto. ceergaabo ayaa awal la isku hayay, hadda ceergaabo waa la iskala soo tagay oo saldhigyada ugu weyn Guumeys iyo sidoo kale saldhiga la yiraahdo Og ayay hadda xaaladdu ka taagan tahay, iyada oo dadka arrimaha la socdana ay leeyihiin waa in si degdeg ah xal loo gaaro, la wada hadlo, lagana heshiiyo dhammaan waxyaabihii la isku hayay oo ay dad badan aaminsan yihiin in beelaha warsangeli dhulbahantaha iyo reer Sheekh Isaaq maadaama dad Soomaaliyeed ay yihiin ay wada hadli karaan. Somaliland ilaa inta ay maamulkan ka aqoonsanayso waa maamulka waqooyi bari, oo malayn maayo in maxaabiis la siin deyn doono, umna malayn maayo in la wada hadli doono oo wada xaajood iyo wada hadal iyo walaaltinimo lagu dhameyn doono xaaladda, sababtoo ah sidii hadda xaaladdu ku muuqato dabcan waxaad arkaysaa inay dhinacyadu sii kala fogaanayaan
oo ay xaaladdu gaartay meel barakaley ah oo waxba laga qaban karin sida ay dad badan aaminsan yihiinna xaajadani waxay tegi doontaa meel allow sahal ah waxaana la arki doonaa isku dhacyo ka weyn intii hore loo arkayey oo ah in la arko warsangeliga iyo dhulbahantaha oo dagaalamaya Puntland iyo warsangeliga oo dagaalamaya ama dhulbahantaha iyo sidoo kale Puntlandta oo dagaalamaya haddii aan xal degdeg ah la helin gudaha saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhayihiin haday tahay markii kuugu horeysay nagu soo biir oo subscribe dheh Daraja Media waxaad heli doontaa insha Allah wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb sida u aragtid sidee xal looga gaari karaa khilaafka beelaha Ciise iyo Samaroon xalkiisu muxuu ku jiraa mase ku muuqataa in Somaliland iyo Djibouti ay isfara saari karaan aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb saaxiibayaal soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan sharaf iyo karaamo soo dhawaada saaxiibayaal